السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا كفران kanaalkeena caafimaadka ee dhagtarka caafimaadka qoyska aad u soo dhawaada waqtiguna haydin wacnaado. waxaynu insha Allah soo qaadanaynaa maanta fikrada macmalka ah ee afka qalaad lagu yiraahdo hemoplastic virginity ama hemoplastic membrane. hemoplastic membrane ku waa fikro macmal ah oo dhawaamahan la sameeyo ama dhakhaatiirta qaar ay sameeyaan. waxaad ogsoon tihiin in adduunka imika waxaan leeyahay modern surgery-ga ama plastic surgery-gu uu aad xadka uga baxay. horeynu u tilmaamnay fikrada inay jabin karaan waxyaabo aan ahayn galmo, laakiin maanta waxaynu isu taagaynaa oo aynu ku hakan doonaa fikrada macmalka ama beenta ee ay samaystaan haweenka gaar ahaan marka ay yaryar yihiin. loss virginity-ga markay haweenaydu weydo fikrada waxaa jira waxyaabo badan oo ku qasbaysa inay fikra samaysato xilliyada qaar, sida markay guurka galayso, marka ay samaysanayso ama ay saaxiib cusub samaysanayso. dhaqamada gaalada dadka qaar ayaan belief garaysnayn ama shardi kaga dhigay inay haweenaydaasu ama gabadhaasu ay fikra yeelato. sababahaasaa keena in la sameeyo qalliin ama tolme macmal ah oo la yidhaahdo fake suture baa gabadhii lagu samaynayaa. inta badan markay arrimaha noocan oo kale ahay dhacaan ama aslanba fikradu waxay u baahan tahay mas-uuliyad aad u badan ilaalinteedu, sababta oo ah waa wax aad haweenka qalbigooda ama muraayada meesha ugu qiimaha badan ee haweenayda lagu xisho xilliga guurka. dhaqamo badan oo soo jireen ahaa ama gaar ahaan dhinaca dhaqamada Afrika iyo wadamada Carabta kow ka ah ayaa waxay ruul aad iyo fital aad muhiim ah ka ciyaartaa fikradu in haweenayda la guursado. haddii la guursado oo arrinta laga waayana ay ceeb iyo fawaaxish iyo dhibaato ay kala kulmayso. haddii laga helana ay noqonayso qof nolosha ku guuleysata oo ku hana qaata. waa caado dhaqameed aad muddo dheer lagu dhaqmayay oo soo jirtay, laakiin aslan adduunkan casriga ah ilbaxnimadan iyo aqoonta faraha badani waxay ina faraysaa inay fikradu tahay wax xuuba oo jabi karta waqti kasta iyo xilli kasta. haddaba fikrada macmalkaahi meel aan meeshii lagu talagalay ahayn baa la keenaa xagga hore ee dibnaha laamiya majora iyo laabiya manoore ee ka ee marinka taranka haweenayda ayaa la dul keenaa, taas oo uu qofku ku ogaan karo in ay tahay mid macmala. talabaad ee ninku ku ogaan karaa waxay tahay muddadii iyo xilligii fikrada normalka ah ay ku jabaysay ama fikrada nature-ka ah ee dabiiciga ah ay ku jabaysay. tani muddo dheer bay qaadataa oo way ka badataa. ta saddexaad ee ugu dambaysa waxa weeyaan fikrada macmalka ahi waxay samaysaa haweenayda dhibaatooyin ayay kala kulantaa, xanuun oo caafimaad. habeenka hore ee aqalgalkeedana mashkilad aad u weyn ayay kala kulantaa. ninka qudhiisu waxa uu dareemaa xanuun, waayo xubinka ninkuna waa mid ka samaysan muscles, tendons iyo cartilage. kuwaasi markaa iyaguna danqasho ayay sameeyaan ila meeshii xadhig buu garaacay ku jira meeshii iyo soon baa la geliyay. saddexda arrimood buu ku ogaan karaa ninku si fudud inay tahay haweenaydani ay leedahay hemoplastic ay leedahay ama ay leedahay bahasha aynu tilmaamnay ee aynu ku tilmaamnay fikrada beenta af Soomaaliga lagu yiraahdo. aad baad u mahadsantihiin. subscribe-ka nagu soo biya kanaalkeena caafimaadka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.